ilahantiin badda wadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban aan ku dul istaagi doono fanaanada saameynta badan labadii toddobaad ee aan soo dhaafnay ku yeelatay baraha bulshada iyo caalamkaba. waa fanaanada iskoorka ugu cajiibsan jebisay ee fanaaniin Soomaaliyeed ay jebiyaan. heesta waa tuma ay fanaanada Nimca Habi qaaday ee maalmahan baruuxday masraxyada caalamka iyo sidoo kale kuwa Soomaalida. inkastoo kuwa Soomaalidu aysan heestan in badan aysan buunbuunin, balse waxay buunbuunin halis uga timi wadamada caalamka oo heestan oo loo diiwaan geliyay heesta ugu saameynta badan sanadka 2021. daawadayaal ku soo dhawaada warbixintan kooban. daawadayaal waxaan idinka codsan lahayn inaad subscribe noo saartaan. أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نكبندا ميمسانا ووجدت عاشقيها. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal, halkani waa Hogol News. waxaan idinka codsan lahayn inaad haddaa tahay markii kugu horreysay inaad mowduucan like, comment, share iyo sidoo kale subscribe noo saartid. waxaad ku mahadsan tahay la socodka barnaamijyada aan soo gelina halkan. waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada hees ay ku luuqaynayso fanaanada caanka ee Nimca Habi. heestaasoo lagu magacaabo Isii Nafta, taasoo dhalisay hadalhayn badan aaladaha social media gaar ahaan TikTok-ta kadib markii ay soo jiidatay dad badan oo ajaanib ah oo isticmaala barahaasi. heestan ayaa waxaa xitaa soo jiidatay dareenka warbaahinta adduunka qaarkood kadib markii ay muuqaalada maaweelada ah ay adeegsadeen baraha bulshada dadka caanka ka ah. muuqaalada ugu badan ee lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka falceliyey dad badan oo aan hayn Soomaali una badan ajaanib caanka ah guudkan aan adduunka ka saaranahay. waxaa ka mid ah fanaaniin majaajileystayaal caan ah oo u dhashay dalka Mareykanka oo ay ka mid yihiin dadka iska soo duubay muuqaalada heesta Isii Nafta ku luuqaysa fanaanada Nimca Habi. fanaanada Nimca Habi ayaa taageerayaasheeda ugu mahadcelisay muuqaalka ay baraha bulshada ku baahiyeen, waana muuqaalkii ugu horreeyay ay soo dhigto tan iyo markii heesteedu noqotay midda loogu hadalhaynta badan yahay caalamkan maalmihii ugu dambeeyey. Hello, hi, I am Nimca Habi. Thank you for the support. My song, I love you more than my life. Thank you so much. fanaanada ayaa sidoo kale la sheegay inay qandaraas la gashay shirkadda qaabilsan suuqaynta heesaha ee lagu magacaabo Universal Music, iyadoo heesaheeda laga dhagaysan karo applicationada ugu caansan caalamkan aan ku noolahay, si gaar ah Apple Music. fanaanada heesta qaada ee Nimca Habi, heestan oo erayadeedu ay ku jiraan luuqado kala duwan, ayaa xiise gaar ah u yeelatay dhagaystayaasha caalamka oo soo jiitay sida ay ugu luuqaynayso. heestan ayaa la sheegay in aad looga dhageysanayo maqaayadaha lagu caweeyo ee dalalka caalamka guud ahaan, si gaar ah London, New York iyo sidoo kale Mareykanka. waana heestii ugu saameynta badnayd ee ka gudubta qaarad ka qaarad muddooyinkii ugu dambeeyey. heestani aniga qudhayda ayay iga waashay. waa hees markii aan sameynayay yacni ma dareemi karaysid, sababtoo ah inta badan heestan waqti hore soo baxday, balse sida ay saameynta u yeelatay hadda waa 2 week ka hor oo meel kastoo caalamka ah laga dhageysanayo. wadamo badan oo caalamkan ku nool oo dalalka Yurubiyaanka iyo Geeska Afrikaba waxay ku leeyihiin sidee annagana luuqadeeda loogu soo diri kari waayey, sababtoo ah 3 luuqadood bay tahay. 3 luuqadood weeye, waa Soomaali, English iyo malaha Swahili. fanaanada Nimca Habi waxay noqotay fanaanad caalamka oo dhan iska gada, inkastoo qolada heesaha yacni diiwaan gelisa ee Universal Music ay sheegtay in fanaanadan heesteeda ay u soo dirto kadibna ay ku darto albumka markaa meelaha ugu khatarsan adduunka la geliyo. waan islaamayaa hadda fanaanadiina halkaasay maraysa. waxaase xusud mudan daawadayaal inta badnayd ee ka gudubta qaarad ka qaarad muddooyinkii ugu dambeeyey in heestan ay soo baxday sannado ka hor, balse ay Soomaalidu heestaas aad aysan ula jaan qaadin. waxaase heestan cirka geeyey markii ajaanib caalamka ku nool oo caan ah ay heestan mar qura internetka ka arkeen, kadibna ay muuqaalo goosgoosa isaga soo sameeyeen. Soomaalida ayaa waxay ku noqotay mar qura anfaraar maadaama fanaanadan ay masraxiyadda ugu dambeysay waqti hore. waxaase xusud mudan in fanaanadan ay hadda ku soo laabatay masraxiyadda caalamka oo dhanna looga dabaaldegayo, bal sidii fanaanadan mar qura wiceeda faneed si weyn looga qayb qaadan lahaa. waxayna ku nooshahay dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee dalkaasi
Kenya gaar ahaan Nairobi. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warbixinteennii koobnayd aan kaga hadlanay fanaanada saamaynta badan ee Nimco Habi oo caalamka oo dhanba gilgishay. Intaan ku kulmi doono warbixin la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulante. أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي nakupenda mimi Ogsono inaan ku jecelahay أنا love you more than my life أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي nakupenda mimi sana ووجدت عاشقيها Ogsono inaan ku jecelahay أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي nakupenda mimi sana ووجدت عاشقيها Ogsono inaan ku jecelahay أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي nakupenda mimi sana ووجدت عاشقيها